xilliga dhallinyarada tahay war iyo warbixin toona kama haysid sida ay noloshu tahay. haddii aad maanta diiddo naseexo oo kuu soo jeediyey qofkaa weyn, qofkaa caqli badan, qofkaa aqoon badan, laakiin qaladka ugu weyn ee noloshaada ka gelaysid waa cabsida aad ka cabsanaysid khatarta kaa soo wajihi karta waxyaalaha aad samayn doontid. taloso aan ku siiye, bal raadi shaqo aad jeceshahay qabashadeeda, ama adigu hal abuur haddii aad awooddo. ku soo dhowow kanalka Noodaan. xilliga dhallinyarada tahay war iyo warbixin toona kama haysid sida ay noloshu tahay. waxa aad samaysaa oo keliyahay wixii maskaxdaada ka soo duxa, adiga oo aan xitaa isweydiin ma dhib baa ka imaan kara mise waad ka faa'iide. waa hubaal in qof walba oo dhallinyaro ahi u baahan yahay naseexo ama in wax loo sheego si uu wakhtigiisa uga faa'iidaysto. laakiin inta badan dhallinyaradu ma yeelaan naseexooyinkaas, inkastoo ay dib ka ogaadaan faa'iidooyinka ku jira naseexooyinkii loo soo jeediyey oo ay hore cagta mariyeen. waana hubaal inaad ka shallaayi haddii aad maanta diiddo naseexo oo kuu soo jeediyey qofkaa weyn, qofkaa caqli badan, qofkaa aqoon badan. maanta halkan ayaan kugula wadaagayaa 7 naseexo oo ku socota dhallinyarada. ha ku eedayn qaladaadka noloshaada. qalad walba oo aad samaydo waxa uu noqon doonaa cashar ama sahay aad safarkaaga ku qaabisho. laakiin qaladka ugu weyn ee noloshaada ka gelaysid waa cabsida aad ka cabsanaysid khatarta kaa soo wajihi karta waxyaalaha aad samayn doontid. dhinaca kale haddii loo macneeyo, waa adigoo go'aansaday inaad u safarto magaalo, haddana ka cabsanaya waddadii aad ku safri lahayd oo iskaba dhaafay safarkii cabsida awgeed. sidaa darteed ma suurtagelayso inaad magaaladii tagto, ileen waad ka baqdee. samaynta qalad waxaan dhihi karaa waa fursad mar ku soo marta ama marar badanba ku soo marta, maadaama aad samaydo qaladaad fara badan. waxaana hubaa inaad ka baran doonto cashar. wax walba oo aad go'aansato samayntooda waa hubaal qalad la'aan ma dhammaystirmaan. dadka aad arkayso oo maanta guulaha sheeganaya, haddii aad akhriso sheekooyinkoodii hore waxaa kuu soo baxaya inay inta badan guuldarraysteen, laakiin ugu dambayntii guulaysteen. guuldarrooyinka faraha badnaa ay ka barteen casharro kala duwan, kana kororsadeen khibrado fara badan. sidaa darteed ha ku eedayn qaladka nafsadaada ee ka baro cashar, meelna ku qoro si aad mar labaad ee ay xaaladdaani kuu soo wajahdo aad xal ugu hesho. inaad ku faraxsantahay shaqada qabanayso dhan walbaba ha ahaatee waxay kaa caawinaysaa inaad ka guul gaarto hadafkaada oo aad nolol fiican ku noolaato. laakiin inta badan dadku 70% kuma faraxsan shaqada ay hayaan. bilowga shaqada waa ay ku faraxsan yihiin. inta badan dadku marka ay muddo ka shaqeeyaan shirkad ama ganacsiyo kale waa ay caajisaan, oo waxaad arkaysaa iyaga oo aan ku faraxsanayn shaqada ay hayaan. haddii aadan ku faraxsanayn shaqada aad qabanayso, fadlan ha isku daalin oo ha isku darsan farxad la'aan, caajis iyo niyadjab. taloso aan ku siiye, bal raadi shaqo aad jeceshahay qabashadeeda, ama adigu hal abuur haddii aad awooddo. nin baa baranayay in muddo ah computer programming, waxa uuna ahaa qof ay dadku hadalladiisa inta badan ku qoslaan. sidoo kale shakhsigan ayaa jeclaa inuu mar u noqdo comedian ama jilaa ama shactaroole. laakiin in muddo ah markii uu baranayay computer programming, sheekadii waa isoco weysay oo imtixaankii ayuu ku dhacay. intaa kadib waxa uu go'aansaday inuu noqdo shactaroole ama comedian. maantadan la joogo waa comedian qaarad ka qaarad isaga safra si uu u qabto bandhigyo kala duwan. taladaydu waxa ay tahay, shaqada aad hayso ha ahaato mid aad ku faraxsan tahay. ka faa'iidayso wakhtiga, quwadda iyo lacagta haddii ay ku soo marto. xilliga dhallinyarnimada waxyaalo fara badan ayaa ku soo mara aysan maanta haysan dadka kaa waaweyn, oo ay ka mid yihiin wakhtiga, awoodda iyo caafimaadka. saddexdaas inta aad dhallinyarada tahay ka faa'iidayso. wakhtigaada ha dayicin oo wax maalayacni ah ku qaban. uga faa'iidayo si khayr iyo wanaag ku jiro. bal ka soo qaad in maalin kasta ay bangiga kugu soo dhacdo $86,400. sideed u isticmaali lahayd? ogowna lacagta waxay kaa dhacaysaa ama ku dhacaydaa 24 saacadood. 24 saac ee xigana waxaa lagu siinayaa saami intaa la eg oo ah $86,400 maalin walba. taa oo aan ula jeedo maalin walba waxa aad haysataa 86,400 oo sekin.
bal sideed uga faa'iidaysataa? faallada hoose ugula wadaag jawaabta su'aashan. sidoo kale ka faa'iidayso awoodda. inta badan waxaad arkaysa dadka da'da ah waxa ay ka shallaayaan xilliga ay dhallinyarada ahaayeen iyo sida ay ugu isticmaaleen xoogga ama awoodahooda oo ay meelo maalayacni ah ku bixin jireen dagaallada, fadhi ku dirirka, ciyaaraha kala duwan oo aan runtii waxba laga faa'iidayn. ka faa'iidayso wakhtigaada, awoodahaada iyo caafimaadkaada aad maanta haysato. naftaada iyo kuwa kaleba daacad u ahaw. dadka kugu hareeraysan iyo nafsadaada oo aad si daacadnimo leh ula dhaqanto ayaa ah runtii arrin u baahan inuu yeesho qof walba oo dhallinyaro ahi si uu mustaqbalkiisa u noqdo mid wanaagsan. waxa uu noqon doonaa mid ku sharfaan maadaama uu ahaa yaraantiisii qof daacad ah, qof dadka ixtiraama, qof dadka caawiya. waxaase hubaal ah inay dadkuna sidoo kale ay xushmad iyo ixtiraam gooni siin doonaan. teeda kale, daacadnimadu waxay hoggaan u tahay nabadda, xasilloonnida nafsadaada iyo kuwa kaleba. haddii aad aragtay qof khiyaano badan, qof dadka kula hadla hadalla xunxun oo haddana dhallinyaro ah, qofkaas adduun iyo aakhiraba ma sugi doono sharaf iyo ixtiraam ilaa uu ka beddelo arrintaa. mustaqbalkiisa adduun iyo mid aakhiraba waxa uu ku sugan yahay xaalad madow ah. waxaan idinku waanin lahaa aniga oo nafsaddiida ka bilaabaya inaad daacad u noqotaan nafsaddiinna iyo kuwa kaleba, ula dhaqantaan sida wanaagsan oo aad adiguba jeceshahay in lagula dhaqmo. 10 daqiiqo maalin walba. qaadashada energy, helidda fikrado iyo dib u daalacashada waxyaabihii aad soo qabatay waa arrimo badan oo loo baahan yahay shakhsigu inuu sameeyo maalin walba. 10 daqiiqo oo aad maalin walba tagto meel jawigeedu deggan yahay, buuq lahayn, indhaha u wanaagsan, maskaxdu ay dareemayso ama jidhku uu dareemayo macaanka hawada. daalaco waxyaabihii aad soo samaysay, weliba adiga oo muhiimadda siinaya guuldarrooyinkaadii ama waxyaabihii aad ku guuldarraysatay. waxaase kuu soo bixi doona xalka guuldarro walba maadaama aad casharo ka baratay. aanahuba haddii aad mar labaad isku daydo inaad ku guulaysan doontid insha allah. sidoo kale, bal maskaxdaada tuuji oo isku day inaad la timaaddo fikrado cusub adiga oo isticmaalaya khibraddaada iyo tan dadka kaleba. su'aal baad isweydiinaysaa oo ah, sideen ku heli karaa dadka kale khibraddooda ama oraahyadooda? taasi waa sahal. waxaa maanta jira malaayiin buug oo ka hadla taariikho kala duwan, caafimaad, isboortis, dhiirigelin. akhri buwaagta, ogsoonowna haddii aad maalin walba akhriso wax aadan horay u arag, taa micnaheedu waa waxbaad kororsatay. midda saddexaad waa energy. 10 daqiiqo oo aad keliga ahayd, weliba aad fadhisay goobta, sidoo kalena nafsadda jeclaysatay joogitaanka. jidhkaadu waxa uu qaatay energy, haddana waxa uu diyaar u yahay inuu sameeyo kaana caawiyo xaqiijinta hadafyadaada. la saaxiib in fara badan. inaad xiriir la samaydo dad fara badan aad saaxiibo ka dhigato ayaa kaa caawinaysa waxyaalo fara badan oo aad u baahan tahay. tusaale, waxaad ku nooshahay qurbaha, waxa aad tahay arday, waxaad wax ka barataa mid ka mid a jaamacadaha waddanka aad joogto. jaamacadduna waxay ku baxdaa afka waddanka aad joogto, adiguna ma garanaysid waxaa la idiin diray assignmenti. ogowna waxaad garanaysaa ingiliishka oo si wanaagsan uma garanaysid luuqadda waddanka aad joogtid. laakiin nasiib wanaag waxaa galaaska saaxiibo ku tihiin arday fara badan oo waddanka u dhashay. sidaa darteed waxaa kuu fududaanaysaa si wanaagsan ku baasto maadaama ay ardaydaas kaa caawin doonaan ayna ku turjumi doonaan. laakiin haddii aanan jaamacadda wax saaxiiba ku lahayn, maxaa dhici lahaa? muuji kumaa tahay. dadku ma akhristaan maskaxda dadka kale. sidaa darteed waa inaad muujisaa dadkana bartaa shakhsi nooca ayaa tahay. taa waxaa ula jeedaa, tusaale waxa aad tahay qof ku wanaagsan dhinaca tiknolojiyadda, laakiin dadku sidaa kuma aqoonsana. waa inaad soo bandhigtaa dadkana la wadaagtaa waxyaaba aad garanaysid. sidoo kale waxa aad tahay qof ku wanaagsan dhinaca iyo jilliinka, sidoo kale waa inaad soo bandhigtaa dadku kuma garanayaan maadaama aysan dadku garanin. waa inaad soo bandhigtaa dadku kuma garanayaane kuma tahay. dadka qaar kuma aqoonsana inaadba jirto. adiga i daawanaya ayaan kula hadlayaahe kuma tahay. waxaad isku muujin kartaa dadaal fara badan iyo juhdi dheeraad ah oo aad bixiso. waxaan ii rajaynayaa farxad iyo guul, laakiin hore loo yidhi dadaalaa wuu gaaraa.